qabanqaabada iyo diyaargarowga loogu shiro xuska munaasabada weyn ee kowda luuliya oo ah markii ay xoroobeen gobolada koonfureed iyo israaciil labada gobol ayaa si weyn looga dareemaya magaalada Nairobi waxaana madaarka caalamiga Jomo Kenyatta Airport ka soo degay fanaanada caanka ah Hiba Nuura iyo Farxaan Xidig waxaana madaarka ku soo dhaweeyay safiirka dalka Soomaaliya u fadhiya Kenya Maxamed Cali Nuur Americo isagoona tilmaamay in munaasabadan lagu qaban doono safaaradda Soomaaliya ku leedahay dalka Kenya waxaana hadallo dareenkeeda ku aadan halka ka soo sheedisay fanaanada caanka ah Hiba Nuura iyo Farxaan Xidig waxaan u faraxsanahay si aan la malayn karin halkan oo jaaliyadii Soomaalida warfaafintii Soomaalida hablihii quruxda badnaa Soomaalida safiirkii Soomaalida intuu way igu soo dhaweysay aniga Farxaan Xidig aad baan ugu faraxsanahay munaasabadan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan munaasabadan kowda luuliya aan kaga soo qayb galo Kenya marka dalkeenana waxaan rajaynayaa insha Allah Ilaahay nabadda inuu noo adkeeyo aad baan ugu faraxsanahay wariyaasha iyo safiirka iyo Soomaalida jaaliyadda aad baan u wada salaamayaa waa mahadsantiin soo dhaweynta sidoo kale waxa isna halka ka hadlay danshiraha dalka Soomaaliya u fadhiya Kenya waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inay noo yimaadeen Hibo iyo Farxaan waxaan u mahadcelinaa jaaliyadda reer Soomaalida ee reer Nairobi oo saaka soo dheelmaday iyo wariyaasha aad baan uga mahadcelinaa waxaan ballan caawiyay safaaradda iyo xafladda kowda luuliya munaasabadan kowda luuliya oo ah mid aad ugu weyn qulubta ummadda Soomaaliyeed ayaa ah markii ay xoroobeen gobolada koonfureed maalmo kadib markii ay xornimadooda heleen gobolada waqooyi 26 Juun kadibna ay kowdii luuliya isku biireen halkaasna ay ka dhalatay jamhuuriyadda Soomaaliya waa Axmed Cabdiraxmaan Home Cable TV magaalada Nairobi